guntaday xilka guud ka saaro xubnayahow guntaday dhergaratadaamo xubnayahow ninga caaliyo gayigoodu jecelyo gama xubnaha diidee dadkoodii angabino xubnayahow garaad xume geridooda jecelyo xubnayahow gumaysigu gumuca u afaysto xubnayahow guntaday xilka guud ka saaro xubnayahow guntaday dhergaratadaamo xubnayahow ninga caaliyo gayigoodu jecelyo gama xubnaha diidee dadkoodii angabino xubnayahow garaad xume geridooda jecelyo xubnayahow gumaysigu gumuca u afaysto هذا شيء حاطط ما في شفتها دليرتي ما قدرت قادم هاي المدرسة سلام waxaan marka hore salaamayaa dhammaan mas'uuliyiinta jabhadda wadaniga xareynta ogaadeenaya ee madashan ku sugan waxaan gaar u sii salaamayaa mudane maxamed axmed yaasiin dhiirane oo soo kicitamay inuu wax la qaybsado inalana wadaago maaragtay casharihii badnaa uu inasiiyey waddanka Yurub waxaan ku leenahay aniga ku hadlaya codka dhalinyarta reer ogaadeenaya North America soo dhow mudane waxa aan salaan gaar ah iyadana maaragtay u soo tabinayaa dhammaan shacabweynaha ka soo qayb galay madashan maanta lagu xusayo shir sanadeedkii jaaliyadaha North America ee sanad kasta maaragtay aynu ku kulanno waxaan idinkana idin leenahay soo dhawaada aniga ku hadlaya codka ururka dhalinyarta iyo midowga qaranka Soomaaliya ogaadeenaya waqooyiga America waxaan rabaa inaan ka hadlo laba arrimood arrinta koowaad oo ah dhalinyarta reer ogaadeenaya halganka heerka ay ku leeyihiin iyo doorka ay ka ciyaari karaan inta uu leeyahay sida aan ogsoonahay halganka qotada dheer ee muddooyinka badan soo socday madaxdan aad aragtaan maanta inoo hor fadhida waa dadkii soo bilaabay generationkii halganka ay soo gaarsiiyay weeyaan dhalinyartuba sidooda waa dhabarta halganka dadka halganka wadaay waa dhalinyar dadkii soo aasaasayna waa dhalinyar ilaa iyo da'da ay maanta joogaan way ina soo gaarsiiyeen message-kii carabtu waxay ku maamaadaa kullu zaman laha rijaal sanad kasta oo la joogaa wuxuu leeyahay rag generationkii wax bedeli lahaa waqtigan haatan la joogo dadka loo baahan yahay inay wax bedelaan door weyn ay ka qaataan halganka socda ee maaragtay jabhadda wadaniga xareynta ogaadeenaya inoo wado dhalinyaro waa inaga marka doorkeen ka ciyaari karaa halganka waa inaan maskaxdeena iyo waqtigeena iyo maaragtay lacagteena inaan gelino garab istaagno jabhadda wadaniga xareynta ogaadeenaya ee u guntatay inay difaacaan dadkooda dulman iyo maaragtay geygooda uu gumaysigu gowreero midaas oo ah waajibaad ina saaran innaga oo isbarbar dhigayna nolosha qurbaha aynu ku noolnahay iyo maaragtay waxbarashooyinka aynu ku jirro iyo shaqooyinka aan haysano kii ina la mid ahaa ama hooyooyinkan ay dhaleena uu maaragtay dhaxanta guureeyo dhibaato iyo rafaadna maaragtay adduunka qofka bini'aadamka wuxuu ugu jecel yahay waa naftiisii haddii uu horay innagana waxaa la inooga baahan yahay wax alla wixii kale ee uu u baahdo inaan hareertiisa istaagno hiil iyo hoob aan la garba istaagno dhammaanteen waxaa kale oo rabaa halkan inaan message uga gudbiyo
codka ururka dhalinyarta reer Ogaadeniya ee waqooyiga America inaan u sheego maxaysatada ama lahaystayaasha Ethiopia inayna hadafka dhalinyarta ee reer Ogaadeniya haddii ay isku dayaan inay wax ka bedelaan inayna waxba ka bedeli karin saacadii la joogo iyo waqtigii la joogo heegan aanu u nahay kana soo horjeedno gumaysiga waxaan u diraynaa message inaan la bedeli karin maskaxda iyo midnimada dhalinyarta reer Ogaadeniya meel kasta ay joogaanba waxaana heel iyo hooba la garab taaganahay jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya inta haddaan taa kaga baxo walaalayaal sidaan sheegayba kulli waxaa iga dambeyn doona mudane cabdiraxmaan oo ka sheekeyn doona waxqabadka ururka dhalinyarada iyo meelaha uu marayo waxaan aad u salaamayaa dadka meelaha fog ka soo kicitamay iyo jaaliyadaha ka soo qaybgalay shirkan gaar ahaan mas-uuliyiinta dhalinyarta ee ka timid Canada iyo Mareykankaba aad baan idin salaamayaa waxaan idin leenahay soo dhawaada hadduu ilaahay dhaahdo ma rabo inaan hadalka kusii dheeraado asalaamu calaykum waraxmatullahi